magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee Maybageeka Sawiin ku xusay sanad guuridii 74aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed wayba meelaha ku qayb galay mas'uuliyiin shal duwan iyo iska jaraan saraakiil iyo maamulka degmada iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen saraakiisha booliska ee ku sugan degmada Xudur yamayba hambaliyeen dareen booliska Soomaaliyeed meel walba ku roogan ikhdaas oo xusad iyo sharafta mudan yagee ku xusahayn maadaama aragday uun ka sugugna dhul xur an kasto cadaawahumun anaasire geesaa tuurinyin degmada tan muddo 5 sano hata lagu roog hurhayti ka sugugna anuuna aragday aasna an dabaal degna giliina xuska sanad guurida ciidanka booliska Soomaaliyeed yaan usurugay xafladan wali inaan wal xasuus weyn leh oo taariikh leh oo arday arday Soomaali meel walba ardaygeeka roogdu ولين أتا يوم العيد عن أتا فرحة عن أتا ولين كحصول صدق أساس كعيدن كبوليس الصومالي كحصول صدق ومالن قيمة يقدرين لواي أو أرض الصومالي أردن قيمة يقدرين لا أو حسد مدمو أو علم إلهي مرك إلهي وليك رجعنا السنة دي إني أرض إلهي نبت إفياني جيسي قدوميا دقمة حضر محمد معلن iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur ciidanka booliska Soomaaliyeed marwalba la ku warqabo meel ka sii rogan cusbaane ciidamada booliska meel ka sii rogan tale booliska iyo saraakiishiis way ba cusbaane ani maana saraakiisha inta roogda si aan hol runtii booliska may waa saaxiibka koowaad ee bulshada booliska may saaxiib leeyahay dadweynaha booliska may saaxiib leeyahay bulshada saaxiibtinimadaas may waa ka qowadaw والله ولا دبل لنجيس ذو ولا بروبلم أو مكجرة دي تونا هذا فدي هدي والكلام هذا فدي هدي نبتقول هم هذا فدي كي هقوبة فدي حسن كلمية أفرح KGS مقالة بيضاء